السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada dhammaantiin soo dhawaada naqaad academy hoyga milyaneerada mustaqbalka miyaan oran karaa. waxaan filayaa oraahda waa isticmaali karaa sababtoo ah waxa aan ka shaqaynayno ayaa ah shay u qalma in oraahdaas iyo oraahyo kasii qiimo badanba in lagu tilmaamo. soo dhawaada marka hoyga milyaneerada mustaqbalka. waxaanu ka hadlaynay istiraatiijiyadda aan u bixinay istiraatiijiyadda ugu fiican forex aan ku magacawnay oo ah law and order. waxaan soo qaadanay in istiraatiijiyaddaas ay leedahay 5 shardi ama aad ka eegaysid 5 qodob oo waaweyn. 5taa qodob waxa ugu horeeyay trendiga. qodobka koowaad wuxuu ahaa qodobkii trendiga. trend ayaa ugu horeeyay. trend marka wuxuu ahaa jihada suuqa u socdo. waataynu niri trend is your friend. waataynu niri ha noqon against the market. oraahyahaas oo dhan waataynu soo qaadanay oo niri mar walba inaad la saaxiibtaa trendiga ama jihada suuqa u socdo. muhiimad koowaadna aynu siinaynay jihada suuqa u socdo oo aynu niri suuqu 2 jiho aadaa. jihada downtrendka ah jihada downtrendka iyo jihada uptrendka ayuu suuqu aadaa. fursadaheennana waxaanu ku dhisnaa ama fursaddu inay tahay fursad downtrend ah oo ima fursaddu inay tahay fursad uptrend ah. fursadaha consolidationka ama ranging marketka ah inooguma jirin qorshaha oo ma gelayno suuq ranging ku jira. waxaanu gelaynaa suuq kor u socda ama suuq bay u socda. suuq kor u socda ama suuq sel u socda ayaynu gelaynaa. hal mid baan rabaa maanta marka inaan kala faa'iidaysano. waxa weeye marka suuqa kor u socda, for example suuqa kor u socda, lugtiisaan hoose waxaanu ku magacaabaynaa lugtiisa hoose mar walba waxaanu ku magacaabaynaa higher low. waxaanu ku magacaabaynaa higher low. inaad saa ila fahantaan baan rabaa. waxaanu ku magacaabaynaa higher low ayaynu ku magacaabaynaa. waxaanu ku magacaabaynaa higher low. higher low. okay, lugtaa maxaan ugu bixiyey marka higher low? sababtaan ugu bixiyey maxay tahay? waa hayga maadaama suuqan higher low u socdo. waa higher low waa higher haygu waa midka ugu sarreeya. waa kan mar walba noqonaya sarreynaya. waa higher hayga ka hooseeya ayaa waxaa loo yaqaanaa higher low loo yaqaanaa. higher low ayaa loo yaqaanaa. okay, kana maxaa la dhahaa? waxaa la dhahaa waa higher high ayaa loo yaqaanaa. waa suuqa mar walba kor u socda. higher high ayaa loo yaqaanaa. waayahay, higher high ayaa isna loo yaqaanaa. ha ka wahsan qodobadan iyo jaadkan iyo waxaan aan ka sheekeynayno inaad waqti badan la qaadatid. waqti badan la qaadatid waxaan uga jeednaa bimacnaa inaad aad ugu celcelisid. kana maxaa la yidhaahdaa? higher high ayaa la yidhaahdaa. higher high ayaa la yidhaahdaa. higher high ayaa isagana la yidhaahdaa. waay, suuqan hoos u socdana lugtiisaan sare waxaa la yidhaahdaa lower low ayaa la yidhaahdaa. 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 lower high ayaa la yidhaahdaa. sare mar walba waxaa la yidhaahdaa suuqa hoos socda lugtiisa sare mar walba waxaa la yidhaahdaa lower high ayaa la yidhaahdaa. lower high ayaa la yidhaahdaa. kan hoos u jeedana maxaa la yidhaahdaa?
kan hoos jeedana waxa la yiraahdaa lower low ayaa la yiraahdaa. Lower low ayaa la yiraahdaa. Lower low ayaa isagana la yiraahdaa. Way. Kan maxaa la yiraahdaa baynu niri? Lower high ayaa la yiraahdaa. Lower high. la yiraahdaa lower high. Tana waxa la yiraahdaa lower low ayaa la yiraahdaa. Lower low. Lower low ayaa la yiraahdaa. Way. Tana waxa la yiraahdaa lower low ayaa la yiraahdaa. Inta ila fahan. The market is your friend. Inaga muhiimadan waxa weeye inaynu jihada suuqa u socdo mar walba u trade kareyno. Si khasaaraheenu waxa ka meysnaado guusheenuna ay mar walba u sii korato. Sidaa darteed waxaanu galnaa suuqa higher high iyo higher low sameynaya oo kor u socda iyo suuqa lower high iyo lower low sameynaya oo hoos u socda. Mid baan rabnaa marka maanta inaan kala faa'iideysano waa qodobkaasi waa qodobka trendiga. Intaasaan kaga baxayaa. Mar dambe kuma noqonayo. Mar dambe kuma noqonayo. qodob labaad baan rabaa inaan focuska aad u saaro oo ah zonka. Zone maalintii dhaweydna casharkii kan ka horreeyayna waa ku sharaxay. Zone waxa noqon karta meel kasta oo suuqu xoog uga daatay oo jiha ka soo horjeeda uu jabiyay ama meel suuqu xoog uga baxay oo jiha ka soo horjeeda uu jabiyay. Halkaas ayaa zone noqon karta. Waaye waxaan rabaa marka hal qodob inaan ku noqdo oo ah qodobka Fibonacci-ga. Fibonacci-ga 0.75 kaasaynu inagu calaamadsanaa oo zone ahaan u calaamadsanaa. Sababtaan u calaamadsanayno waxa weeye waa saylad muhiim ah oo la yiraahdo golden zone oo suuqu marka uu ku soo noqdo fursad inay ka dhalato aynu ka raadino. Shuruudaha intriga baynu ka raadinaa haddaynu intrig ka helno meeshaas golden zone-ka ana waa meel aad iyo aad muhiim u ah. Waaye si aad u hagaajisatid Fibonacci-gaaga halkaas calaamadda taabo ta koowaad ka bood ta labaadna ka bood tigtana ka qaad ta saddexaad waxa ka dhigataa 0 tigna saaro ta koowaad ka bood ta labaadna ka bood meelaha tirooyinku ku qoran yihiin baan sheegayaa Fibonacci-ga ta koowaad ka bood ta labaad ka bood ta saddexaad 0 ku qoro tigna saaro. Waaye ta afraad ka bood ta shanaad ka bood tigtana ka qaad ila soco hadda waxaan ku yiri ta koowaad ka bood ta labaad ka bood ta saddexaad 0 ku qoro tigna saaro ta afraad ka bood ta shanaad ka bood ta lixaad 0.75 ku qoro tigna saaro waxaan ku yiri ta afraad ka bood ta shanaad ka bood ta lixaad 0.75 ku qoro tigna saaro ta toddobaad ka bood ta sideedaad hal ku qoro tigna saaro. kalarada aad ka dhiganaysid adigay ku jirtaa kalarka aad ka dhigo laakiin ta koowaad ka bood ta labaad ka bood ta saddexaad 0 ku qoro tigna saaro ta afraad ka bood ta shanaad ka bood ta lixaad 0.75 ku qoro tigna saaro ta toddobaad ka bood ta sideedaad hal ku qoro tigna saaro. Inta kale oo dhanna tigta ka qaad sidaa ku safe garay marka waa safe garay. Waaye Fibonacci-ga sidee u isticmaalayaa marka tusaale ahaan suuqaani markii hore suuq hoos u socday buu ahaa wuxuu sameeyey inuu jihadii kala wareejiyo trade-kan oo kale baan intrig ka raadinayaa ama kanaan ka raadinayaa maxaan samaynayaa suuqan oo kale maxaan samaynayaa halkaas ilaa halkaasaan calaamadsanaya halkaas 0.75 ka baan calaamadsanaya yani la soco meeshaan intrigayga ka qaadanaya marka halkaan marka aan suuq halkaan markuu soo noqday counter trend break ii jabiyay igu soo laabtay maxaan halkaa ka filan karayay inay fursad fiican iga dhalatay waa u jeedaanba inay fursad fiican oo bay ah iga dhalatay ayaad u jeedaan. waaye maxaan ka helay intri baan ku raadinaa muhiimadda Fibonacci-ga waxa weeye inaan sayladeena ku soo helo intri inaan helo maxaa ka horeysa horta inaan saylad helo aan suuqa ka bay gareyno ama ka sel gareyno sayladii si aan u helo marka
waxaan isticmaalaynaa Fibonacci-ga inagoo 0.75 levelka calaamadsanayna way hal mid baan rabaa marka zoneskeena uga noqdo zonka aan calaamadsanaya suuqu mar walba mukhasab baa inuu ka noqdo 0.75 may khasab maaha 0.5 buu ka noqon karaa 0.25 buu ka noqon karaa meeshuu rabto ayuu suuqu ka noqon karaa laakiin 0.75 waa meel hadduu suuqu yimaado fursadaydu ay high probability trade win ah ay ii noqon karto weeye horta hadalkayga inaa fahantaan isku daya 0.75 ma ahane meel kale marka ma raadsan karo miyaa fursad hadday su-aashaadu sidaa tahay meel kale fursad waa ka raadsan kartaa zone kale wuu jiri karaa zone isku maaha keliya 0.75 zonka kuma xirna laakiin 0.75 waa meel haddii suuqu kugu soo noqdo shuruudihii interigana aa ka hesid ay high probability trade-kaas uu ku guulaysan karaa ay aad u badan tahay wey way fahantaan u malanaya waa trade-ka macnaha anigu kalsoonida badanahay wey waa trade aan percentage badan ka raadin karo wey way okay suuqu marka sababta maanta lacagtan aan haddii aad ku jirtid telegramka iyo haddii aad ku jirtid mentorshipkaba lacagtan waxaan ka soo dhigay 3 sayladood baan ku sugayaa baan 3 sayladood baan ku sugayaa baan way kow golden zone kan ku sugayaa golden zone ka ayaan ku sugayaa oo lacagtan ilaa halka markaan calaamadsado Fibonacci-ga saaro 0.75 ka zone kan u hooseeya ii jooga waxa yiri marka USDCHF golden zone kan ku sugayaayo 0.75 ka hadday ii timaado interyadeedina aan ka helo lacagtan bay fiican baan u qaadanaya sababtan bay ugu qaadanaya maxay tahay order flow-ga iyo muxuu ahay trendiga ayaa ila jira oo jihada suuqadina waa bay sababtoo ah maxay tahay lacagtu markii hore maxay ku soo socotay hoos bay u soo socotay lower low lower high lower low lower high lower low lower high baa la jabiyay lower high baa la jabiyay haddii lower high la jabiyay suuqii hoos u socday ee down trend-ka muxuu isu bedelayaa up trend ayuu isu bedelayaa oo suuq kor u jihaysan ayuu noqonayaa sidaa darteed fursadaha aan ka raadsanaya maxay noqonayaan fursad bay ah ayaan ka raadsanaya si fiican ayaad in fahamtay baan u malaynayaa haddaba si aan fursadda bayda u raadsado maadaama trendigii aan soo helay qodobkayga labaad muxuu ahaa waa inaan soo helo zone sababtaan waa sayladii marka sababtaan u raadinaya maxay tahay waa boostejadii aan suuqa ku sugayey way saddexdan boostejaan samaystay marka halkan waa order block waa meel boosteje ah waana meel suuq sababtaan order halkaa suuqa u dhigtay maxay tahay waa meel boosteje oo suuqa laga jabiyay iyada laftigeeda meel la jabiyay weeye oo saylad markii hore ahayd oo la soo jabiyay imbalance-na way ku beeganta sidoo kale ilaa soonka soonnimada meesha iska siin maaye maxaa ku siiyey kow waa meel order block oo meel markii hore suuqu uu ka samaystay supply ayaa la soo jabiyey tan labaad waxay igu beegan tahay imbalance oo kandalka iyo kandalka ayay waan is soo gaareen fiqyadooda is soo gaareen imbalance-ga dadka qaarna fair value gap ay dhahan ayay igu beegan tahay ta saddexaad ugu muhiimsan maxay tahay lugtaan iska ilow lugtaan waa lugtaan boostejadii hore aan ku soo helay lugtaan u dambaysa hadeer iyo lugtaan haddii aan isku xiro iyadana halkani maxay igu beegantay 0.75 ay igu beegantay maxay iga dhigaysaa markaana halkaana zone kale oo muhiim ay iga dhigaysaa zonekan saddexaad maxaan isagana halkaan ku soo helay halkaan horta accumulation fara badan baa ka dhacay waa ujeedaan waa meel orders fara badan lagu ururiyey sidoo kale waa lower high-gii hore oo isaguna meel boosteje inoo ahayda halkaani waa zone muhiima sidoo kale Fibonacci-ga haddii aan ku sii eego halkaan ilaa halkaan saaro halkaani waxay ii noqonaysaa kala barka 0.75 ayay igu beegan tahay iyadana 0.75 ayay igu beegan tahay zoneskayga marka saasaan ku calaamadsanaya marka zoneskaaga calaamadsated maxaa kale oo zone ku calaamadsanaysaa zone maxaa kale oo ku calaamadsanaysaa waxaa ku calaamadsanaysaa waa meel dhaqaaq xoog leh uu ka dhacay waa meel dhaqaaq xooggan uu ka dhacay jihadii ka soo horjeedana lagu jabiyey jihadan hadda kan waa lagu jabiyey fiiri zonekan jihadan waa la jabiyey dhaqaaqii ka soo horjeeday baa lagu jabiyey waa meel dhaqaaq xoog leh uu ka dhacay dhaqaaqii ka horreeyana lagu jabiyey
supply-gii ka horreeyayna lagu jabiyey halkani waa maxay noqonaysaa marka demand zone ayay ku noqonaysaa waaye demand zone ayay ku noqonaysaa halkani sidoo kale waa meel dhaqaaq xoogani ka dhacay dhaqaaq xoogan oo imbalance wata ka dhacay oo block hore ugu beegan tahay tanna dhaqaaq xoogan baa ka dhacay dhaqaaq ka soo horjeeday baa isagana la fatuudo la jabiyey waaye maxay noqonayaan marka demand zone ayay noqonayaan zonesku marka laba ay u kala baxaan zonesku laba ay u kala baxaan zones meel aan zone ahayn horta ha ka tirigelin weligaa trade ha ka fulin meel aan zone ahayn meel aan zone ahayn trade ha ka fulin zonesku laba ay u kala baxaan labada ka koowaadi waxa weeye marka demand zone way demand zone way demand zone ka koowaad waa maxay waa demand zone maxaan ka wadnaa marka waa meel saylad aan fursad bay ah ka qaadanayno ayaa loo yaqaanaa demand zone waa sagxad af Soomaaliyan waa maxay waa sagxad waa maxay waa sagxad maxaa weeye waa sagxad demand zone maxaa loo yaqaanaa demand zone waa sagxad weeye Soomaaliyan waa sagxad waaye zonka ka labaad oo isagana focuska aan saarno maxaa weeye waa supply zone waa maxay waa supply zone waa saqaf maxaa weeye waa supply zone waa supply zone cashar buu ku xiran yahay saaxiibayaal waxaad isku daydaan inaad ku celcelisaan waxani waa mustaqbalkaaga waa waxaan isleeyahay waa waxa aad rajaynaysid inaad noloshaada dhan ay bedesho waa waxa aad rajaynaysid waa waxa aad rabtid inaad business ka dhigatid waxa aad rabtid inaad shaqo ka dhigatid ku celceli waqti badan la qaado chatkan waqti badan la qaado la saaxiib kale ha yeelan aan ahayn chatiskan aan ahayn maxaan nidhi zonesku laba ay u kala baxaan waa demand zone iyo supply zone demand zone waa maxay waa sagxad weeye supply zone waa maxay waa saqaf weeye supply zone waa kuwa fursadaha selka aan ka soo raadsan doono waa kaas oo kale hadhow marka la yimaado fursad sel aan raadinaynaa soo ma aragtid kanna waa maxay waa demand zone waa saqafo marka la yimaado fursad bay aan raadinaynaa marka la yimaado maxaan raadinaynaa fursad bay ah ayaan raadinaynaa hadda kan haddii la yimaado maxaan raadinaynaa fursad bay ah ayaan raadinaynaa waa maxay marka waa maxay waa demand zone weeye demand zone nimadiisu maxay tahay inaad bay raadinaysid ayaa ka dhigtay demand zone okay kanoo kale haddii la yimaado maxaan samaynaynaa ka labaad sidoo kale haddii la yimaado maxaan raadinaynaa fursad bay ah ayaan isagana raadinaynaa sidaa darteed muxuu noqonayaa isna muxuu noqonayaa saaxiibayaal wuxuu noqonayaa demand zone ayuu noqonayaa kan saddexaad oo kale haddii isagana la yimaado fursaddu ay timaado muxuu noqonayaa isagana demand zone ayuu noqonayaayo fursad bay ayaan isagana ka fulinaynaa waana kan ugu muhiimsan oo golden zoneka ii ah waana lacagtana waxaa la keenay meel deep ah oo aad hooseysa ayaa la keenay asaa marka muhiimka sii dhigaysa waay maxaan nidhi zonesku waxay u kala baxaan demand zone iyo supply zone ina hadda si fiican ila fahantay baan malaynaya waa maxay zone qodobkeena koowaad waa trendy waa ila fahantay trendygu muxuu yahay higher low maxay yihiin lower high maxay yihiin labaad bay soo hartay oo zone ah zone muxuu yahay zone isagana waa ila fahanteen baan u malaynaya zone isku laba ay kala baxaan supply zone iyo demand zone zoneku number 1 waa meesha aad trade-kaaga ka fulinaysid waa saylada aad trade-kaaga ka fulinaysid oo ka qaadanaysid ama buy ama sell uga galaysid waxyaalaha kale oo dhan waa intii 15 minute aanu la degaynayo intriga aanu ka raadsanaynay counter trend break iyo liquidity iyo mitigation moves inay ii dhacaan iyo manipulation la sameeyay waxaas oo dhan waa inta 15 minute aan ula degaynayo aan intriga ku raadsanaynay laakiin zone iyo iyo trendy waa labada qodob ugu waaweyn waa inaad intrina soo heshid waa inaad jiha suuq u socdana soo heshid hadda jihada aynu lacagtan ka soo helnay maxay lacagtan hadda USD CHF
jihada ay u socoto aynu ka soo helnay maxay tahay jihadeedu waa bay sababtoo ah lower high u dambeeyay baa la jabiyay oo suuqii hoos u socday waa la kala wareejiyay kow trendy baan soo helnay trendy ayaan soo helnay ka labaad oo aan rabno inaan soo helno maxaa weeye waa zone waa inaan soo helno maadaama aan trendigi soo helnay aan rabno fursad bay inaan qaadano ilaa lacagtaani bay u socotaaye waa inaan soo helno zones waa inaan soo helno saylada waa inaan soo helno aan lacagtaan ka galno sayladihii baan raadinay xagee lacagtaani ka noqon kartaa makanay ka noqon kartaa makanay ka noqon kartaa makanay ka noqon kartaa kay ka noqonayso inaga ma ogin nobody knows xitaa saddexdan midkood inay imanayso cid ogi ma jirto laakiin maxaan rabnaa suuqu hadduu furmay waa isniin inaan patience la nimaadno suuqu waa isdiyaarinaya inaan sugno ilaa lacagtu isu keen diyaarinayso trendi marka tradekeenu isu keen diyaariyo markaasaan fursadda inay fulino ay tahay laakiin waa inaan sugno okay haddii lacagtu kan ii timaado maxaan ula degayaa 15 minute baan ula degayaayo counter trend break iyo liquidity iyo manipulation moveskiina ii dhacaan baan sugayaa kadibna fursaddan qaadanayaa kan way iman weyday intaas waa dhici weyday marka intaas waa dhici weyday lacagtu iska soo socota kanay timi kan markay timaado 15 minute loo deg waxaan soo noqday ilaa waa counter trainka in lagaa jabiyo liquidity ina raadisid manipulation moveskiina ay dhacaan raadi kadib fursaddii bay ahaan u qaado hadday intaasi timaado weeye intaasi way iman weyday lacagtu iska soo socota waxay timi sayladeennii saddexaad markay timaado counter trendkan soo laabtay counter trendigan soo laabtay hadalkayga fahan counter trendigan soo laabtay ka raadi counter trend break ka raadi liquidity ka raadi manipulation moveski ka raadi marin habaabintii jahwareerintii ka raadi in la sameeyo accumulation in la sameeyo manipulation in la sameeyo distribution accumulation iyo manipulationku way ka hor dhacayaan adiga waa xaqiijimo intrigaaga ku xaqiijinaya accumulation ururintii in la helo waa fiirinaysaa isha uga jeedaysaa manipulation in la helana isha uga jeedaysaa manipulationka maxaan ku sheegnay waa marin habaabin waa 3 dhaqaaq maxaa weeye in la jabiyo liquidity-gaaga in dhaqaaqii liquidity-ga jabiyo isagana lagu soo jabiyo in lagugu laabto intrigaagii maxaa dhacay accumulation iyo manipulation baa dhacay distribution miyaa sugaysaa maya distributionku waa qaybintii adigaaba ka qayb qaadanaya waxaa soo qaadanaysaa intrigaaga halkaasaa dhiganaysaa distribution baa dhacaya distributionku waa tradeku inuu dhaqaaqo wax kale maaha stop losskaaga meelahanaa dhiganaysaa distributionka adigaa marka safar laba safarna kama qayb qaadanaysid hal safarna waa ka qayb qaadanaysa accumulation oo ururintii kuma jirtid manipulation oo marin habaabinayna kuma jirtid waxaad dushaa ka daawanaysaa suuqan yaa wada baynu nidhi yaa wada smart money traders baa wada dad sida bangiyada iyo institutional tradersku u trade gareeyaan ayaa suuqanba gebigiisaba wada kuwaasi marka waxaasoo cilmiga intay samaynayaan adiga banaanka ka joogtaan laakiin marka u dambeysay ay samaynayaan maxay distributionka safarkaasaa la saaranta markaasaa la socotaa intii kale oo dhan banaanka ka taagnayd marka saaxiibayaal labada marka zone iyo trendy waa ila fahanteen baan u malinaya waxa uu trendy yahayna waa fahanteen waxa uu zone yahayna waa fahanteen waa ila fahanteen u malayn maayo qof hadda wuxuu u laaban yahay inuu jiro zone iyo trendy qof wuxuu u laaban yihiin inuu jiro u malayn maayo waxa inoo haray liquidity waa maxay oo aan iyadana si dhib leh u sharaxayno counter trendka oo aan isagana si fiican u jajabin doono manipulation moveska oo iyadana si fiican u jajabin doono zonka u dambeeyo trendiga aan ka qaadanayno tradekana isagana si fiican aynu u sharaxi doono casharku maanta intaasuu inoogu egyahay telegramkana waa kusoo biiri kartaan descriptionka youtube-ka waa yaala sidoo kale profileka tiktok waa yaala tiktok hadduu kugu dhufsami waayo linkiga qaado telegramka meel kale ku bastigre kadib joindha uu kuusoo gelaya youtube-keenana subscribe dha tiktok-keenana follow dha casharo badan oo muhiim ayaad la socon doontaan saaxiibayaal soo dhawaada kusoo dhawaada Hanaqaad Academy waa mahadsantiin ramadaan kariim